shirweynahan oo halkudhigiisu yahay dib u cusboonaysiinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waa lafdhabarta cadaaladda midnimada iyo horumarinta deegaankeena Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmay xilli uu isbedel taariikhi ah oo mug weyn ka socda dalka guud ahaan iyo deegaankeena iyo dhammaan mandaqada geeska Afrika xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo majalada hogaaminta u hayay talada deegaanka 20 sano ee la soo dhaafay ayaa xaqiijiyay natiijooyin wax ku ool ah oo dhinacyada midnimada horumarka iyo nabadgelyada ah muddadii uu talada deegaanka ay xisbigu wuxuu xoogga saaray sugidda xuquuqaha iyo jiritaanka qowmiyadnimada Soomaaliyeed ee shacabka deegaanka Soomaalida isagoo xidhiidh wanaagsan iyo iskaashi joogto ah la leeyahay asxaabta wadaagta aan nahay ee u horeeyo ururka EPRDF ee ururada kale shanta deegaan ee wadaagta aan nahay guddiga siyaasadeed ee xisbigu waa afkaar horusocod lehna ujeedooyin horumarineed isla markaana ka bilaabata kuna dhammaata si daacad ah u adeegida shacabka xaqiijinta ka faa'iideysiga shacabka ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada gaar ahaan ka qabtirka adeegyada aasaasiga sida biyaha waxbarashada caafimaadka jidadka iyo wixii la mid ah xisbigu wuxuu halgamayaa siduu shacabka deegaanka uga saari lahaa culeyska iyo cidhiidhiga ay leedahay ku noolaanshaha saboolnimada waxaanu ka go'an inuu dadaalkiisa sii xoojiyo shaqooyinka horumarineed iyo maamulka suuban ee ka faa'iideysiga shacabka xaqiijin doona xisbigu wuxuu dib u qiimeeyay dhibaatooyinka iyo geedi socodka la soo dhaafay muddadii 20 sano ahayd ee la soo dhaafay wuxuuna garwaaqsaday inay jireen aragtiyo iyo ficillo xisbiga lagaga leexday tubtii iyo waddadii toosneed ee loo jeexay xisbigu wuxuu wajahay duruufo siyaasadeed iyo mid hogaamineed oo cakiran kadib markii ay hogaaminta ugu sarreysa ay ka leexatay tubti iyo xeernidaamka xisbiga taasoo dhaawac weyn u geysatay xubnaha xisbiga dhammaan shacabka qiimeynna lagu saxay dhibaatooyinkaas xisbigu wuxuu waayo aragnimo u leeyahay inuu qiimeeyo si qoto dheer u qiimeeyo raadkiisii siyaasadeed iyo natiijooyinkii laga dhaxlay isla markaana qaaday tallaabooyin sixitaan ah taasoo sixitaan badan lagu sameeyay xagga hogaaminta iyo qaab dhismeedka dib loo sameeyey jawiga wanaagsan oo aan hadda ku joogno oo abuuray mudane madaxweyne marwooyin iyo mudanayaal xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waa xisbiga kaliya ee mideeyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka ilaa iyo haddana ma jiro xisbi mugiisa oo kale oo gogoshiisu sidiisa oo kale u ballaaran tahay midnimada qowmiga Soomaaliyeed iyo midnimada dalka iyo ka faa'iideysiga ummadda Soomaaliyeed xisbiga kaliya si buuxda u hogaamin kara waa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya xisbigu wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed oo si buuxda marka loo hirgeliyo loo dhaqangeliyo isbedel la taaban karo deegaankeena lagaga xaqiijin karo iyadoo xeerarkiisa kala duwan u dhameystiray oo shirweynahana dib u habeen ku sameyn doono khaladaadkii jirayna mid sixitaan hogaamineed isbedel ku baxday taasina waxay wax badan noogu sahli doontaa in taya cusub oo hogaamineed oo aqoon-yahano ah oo qaab dhismeedka dawliga iyo xisbiga lagu sii xoojin doono taasi adeega shacabkana inay kor qaadi doonto ayaa la aaminsan yahay ayada oo laga duulayo xaaladaha siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho ee dalka iyo deegaankaba xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya wuxuu u guntanayaa hirgelinta isbedel loo dhan yahay oo taabagala xisbiga waxaa ka go'an xaqiijinta danaha shacabka Soomaaliyeed sugidda jiritaanka qowmiyadeed iyo midnimada qaranka labadaba haddaba ergooyinka shirweynaha tobnaad ee xisbiga waxaanu kula dardaarmaynaa inaad suurto gelisaan siduu shirweynuhu u noqon lahaa
mid ka gedisan shirweynayaashii hore oo ka soo baxaan go'aano iyo jihooyin wax ku ool ah oo xisbigu dib loogu cusboonaysiinayo tayadiisana kor loo qaado si uu u kasbado kalsoonida shacabka iyo hogaaminta deegaanka iyo hogaaminta dalkaba qayb libaax leh siduu uga gali lahaa gaar ahaan waxaan ku rajo weynahay in iyagoo raacaya xuquuqaha dimuqraadiyadeed oo ku xisan xeroosaadka in ergooyinka iyo go'aamada ka soo baxaya ay noqon doonaan mid xisbi tayo leh karti aqoon leh oo qaab dhismeed adag uu ka soo baxo taasoo ka reeban dana gaara iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo midnimada qoomiga Soomaaliyeed xisbi ilaaliya inuu noqdo hogaamin sidaa ku sifeysana inay ka soo baxdo ayaa la rajaynayaa mudane madaxweyne mariyooyin mudanaya xisbiga kii oo ka faa'iideysanaya waayo aragnimadiisa cuskanaya awoodda xubnihiisa kawaadiriintiisa shacabka iyo hay'adaha dawliga uu dhidibada u aasay wuxuu kalsooni buuxda ka qabaa dhinacyada hogaaminta dhibaatooyinka iyadoo la saxayo inay isbeddelkan deegaanka iyo dalka ka hana qaaday si buuxda loo sii daadihiyo si ka faa'iideysiga ummadda Soomaaliyeed kor loo qaado ka qaybgalka xisbiga heer dalkana kor loo qaadi doono maadaama iskaashiga noo dhaxeeya xisbigeena iyo xisbiga IFADEB kor loo qaadi doono waad mahadsantihiin dib u cusboonaysiinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya waa lafdhabarta cadaaladda midnimada iyo horumarka deegaanka shirkeena sidaas noogu furan yahay mahadsanidin